السلام عليكم أصحابتا ninkii shalay dadka ku dilay magaalada Manhattan ee gobolka New York oo faahfaahinna dheeraad ay ka soo baxayaan ninkaas magaciisa waxaa la oran jiray Shane Tamura oo 27 jir ah ninkan madow ma ahayn waa dadka Native Americanka ee wadanka loogu yimid Hawaii iyo Alaska inta badan goboladaasi dadka degan waa dadka Native Americans kaliya dadkii wadanka loogu yimid marka ninkan waa kii shalay 5 qof dilay hal qofna dhaawac halis gaarsiiyay kadibna isagu istilay haddaba maxaa laga helay gaarigiisii maxay tahay sababta xarunta NFL-ka uu u bartilmaameedsanayay ninkan gaarigiisa oo gobollo badan oo waxa uu ka soo safray Las Vegas waxa uu soo maray Colorado, Nebraska, Iowa, New Jersey kadib ayuu New York soo galay gaari BMW ayuu watay meel aan ka fogeyn dhismaha uu dadka ku dilay ayuu baakin dhigtay waliba laba baakin ayuu isku dhigay kadibna wuxuu bilaabay toogashada inuu building-ka galo gaarigiisa waxyaabaha laga helay waxa kamid ah bastoolad hub boorso oo backbag ah iyo daawooyin oo migraine uu qaadanaya iyo depression oo waliba dhakhtar uu soo qoray sidoo kalena waraaq nowda ayaa laga helay oo 3 bog ka kooban waraaqdaasi waxa uu ku sheegayaa in yaraantiisii markii high schoolka uu dhiganaya ama dugsiga sare footballka ayuu ciyaari jiray sababta ninkan uu dadka u dilayo waa arrintan NFL-ka dhismahoodana uu u bartilmaameedsaday dhismahaasi shirkado badan ayaa deganaayo KPMG iyo Rudin iyo NFL-ka laakiin wish qaldan ayuu raacay qaybtii NFL-ka xafiisyadooda ay ku yiileen maba uusan tagin qayb kale ayuu aaday kadibna dabaqa 33 ayuu isku dilay marka waxa uu leeyahay maskaxdeeda hal baaro waan ka xumahay ninkan waxa la leeyahay 2022 iyo 24 xitaa hospital ayaa la dhigay oo cudurkaasi maskaxiyanka darteed ayaa loo dhigay marka waxa uu leeyahay maskaxdeeda baaritaan ha lagu sameeyo NFL-ka waxa uu leeyahay waxa ay dayacaan ciyaartooyda iyagoo faa'iido fiirinaya waa sida uu isagu uu hadalka u dhigay marka wuxuu yiri horyaalka NFL-ka waxa ay qariyaan oo yiri qataraha dhinaca maskaxaha ka jira iyagoo faa'iidadooda oo kaliya fiirsanaya sidaas darteed askarigii waardiyaha oo ciidamada booliska tirsanaa Daarudil Islaam waxa uu ahaa nin muslima wadanka Bangladesh ayuu ka yimid aaba laba caruur la xaaskiisana canugiisa saddexaad bish soo socoto la filayo inay dhasho aabihii marka uu maqlay wiilkiisii inuu geeriyoodo wiilka kaliya uu lahaa stroke ayaa ku dhuftay maanta masaajidka uu ku tukan jiray ayaa la keenay oo janaasad lagu tukaday 3 sano iyo bar ayuu ciidamada booliska ee New York ka tirsanaa 36 jir oo ahaa marka ilaa hadda boolisku baaritaana ay wadaan gurigii uu ka deganaa Las Vegas saraakiil boolis FBI-da ka tirsan ayaa tagay isla waraaqdii laga helay waalidkiisa gaariga saarneed ayaana laga helay waraaq la mid ah gurigiisa markii la baaray marka saaxiibadii uu la hadli jiray dadkii ehelkiisa dhammaan baaritaanku waa socdaa laakiin hadda warbixinadii u dambeeyay sidaasi ayay muujinayaan waxyaabaha kale ee soo kordho haddii alladma way la soo socodsiinaya welina boolisku baaritaanadooda ay sii wadaan السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada galabta shooting ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Manhattan ee gobolka New York nin magaciisa lagu sheegay Shane Tamura oo 27 jir ah Las Vegas ka yimid qori sharciyeysan oo Las Vegas uu ka soo qaatayna la yimid New York ayaa waxa uu weeraray dhisme saldhig u ahaa NFL-ka waa ciyaarahan footballka ee Mareykanka laga ciyaaro xilligaasi 30 shaqaale ah ayaa ku jirtay waxana uu ku yiilay 365 Park Avenue waxana building-ka la yiraahdaa dhismihiisa Blackstone Asset Management ilaa sanadkii 2012 ayuuna NFL-ka uu xarun u ahaa marka ninkan inuu bartilmaameedsanaya ayaa loo maleynayaa NFL-ka waxa uu ku soo barbaaray Hawaii oo high schoolkiisa uu football-ka ciyaari jiray banoonigan xooga ee Mareykanka laga ciyaaro ninkan waxa uu ka bilaabay nin ka tirsanaa ciidamada booliska ee New York laakiin xilligaasi building-ka waardiyeynayay oo private security u shaqeynayay shirkadahan buildinada amaankooda suga loobiga amaba qaybta hore ee laga galo building-ka ayuu ka bilaabay ninkaasi oo waliba magaciisa la yiraahdo Daarudil Islaam waxaan maleynaya xitaa magaciisa inuu qof muslim yahay inkastoo wali aan la shaacinin ayuu ka bilaabay waa uu dilay kadibna dabaqa 33 ayuu tagay 4 qof oo kalena wuu dilay kadibna isaga ayaa isdilay 3 qofna waa uu dhaawacay ayaa la leeyahay ninkan private investigator ayuu ahaa dadka ayna iyagu shakhsiyaadka sida gaarka wax u baara oo laysin ayuu haystay marka isagiina waa uu isdilay qori waxa uu watay
rival qoryahan AK47 ka weyn waxa ugu xirnaa doorbin nal ayaa ugu xirnaa midka dhawaqa rasaasta aan laga maqlayno afka hore looga xira ayaa ugu xirnaa marka ninkan waxa uu dilay 5 qof oo booliskaasi uu ku jiro 3 qof oo kalena waa uu dhaawacay maayarka magaalada New York Eric Adams ayaa goobta tagay waxaana u sheegay dadka gudaha buildingka ku sugan inay booliska u sheegaan halka ay ka joogaan maadaama ilaa 30 qof xilligaasi ay dhismaha ay ku sugnaayeen isla markaana taliyaha booliska waxay sheegtay qofkii weerarka geystay in la dilay xaaladuna hadda ay caadi tahay sidoo kalena waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka New York Kathy Hochul oo iyaduna sheegtay in ay ka xun tahay waxyaabihii dhacay isla markaana baaritaan la sameynayo ninkan waxa loo maleynayaa inuu kaligii ahaa qofna ay la socon hadda boolisku waxay baarayaan gaarigii uu ku yimid telefonkiisii barihiisa bulshada computer haddii uu lahaa gurigii uu ka deganaana Las Vegas baaritaan ayaa lagu sameynayaa laakiin ninkan bartamaha magaalada ayaa la arkayay isagoo qoriga gacanta ku wata jaakad sporti oo guluusadu ay u furan yihiin wata waxaana uu si toos u tagay dhismahaasi oo dhismo aad u dheer ah oo toogashadaasi uu ka geysto 5 qof uu ku dilay 3 kalena oo ku dhaawacay wixii ka soo kordha waa idila socodsiin doonaa insha Allah